بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كوسو دوادا xogaha ugu dambeeyay akhbaraadka ciyaaraha oo aan idinku soo gudbin doono xogta ciyaaraha waxyaabaha la socod doontaan haddii Allah awood la ogolaado habeennimadan waxaa ka mid noqon doona horyaalka dalka Ingiriiska oo la soo gabagabeeyay yaa ku guuleystay horyaalka Premier League Man City ma Liverpool warbixin ayaan idinkaga haya waxaad kaloo la socod doontaan daawadayaal kabta dahabka ee golalinta dalka Ingiriiska yaa ku guuleystay ina warbixin ayaan idinkaga haya waxaad kaloo la socod doontaan wararkii ugu dambeeyay dhanka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda horyaalka Spain oo caawa ciyaarahiisa badan laga ciyaarayo qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinku soo gudbin doonaa wararka ciyaaraha ee caawa haddii aan ku bilaabo horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa galabta la soo gabagabeeyay guud ahaanba waxaana markaasi la ciyaaray ciyaarahiisa badan oo gabagabo oo ha horyaalkaasi horyaalka Ingiriisku dabcan haata waa mid kamid ah horyaalada ugu xiisaha badan haddii uu sanba ahayn midka ugu xiisaha badan qaaradda Yurub kulamadii ugu dambeeyay ee 38aad ayay galabta kooxuhu ciyaareen Liverpool iyo Wolves Man City iyo Brighton half Albion iyo kulamo kale ayaa jiray galabta hase yeeshee championka Ingiriisku waa Man City are the champion waxa ay markaasi ku guuleysteen markoodii labaad oo xiriira horyaalka dalka Ingiriiska Liverpool wajigaba ayay kala kulantay waxaana la dhihi karaa sanadahanba waa markii ugu soo dhawaatay hanashada horyaalka Ingiriiska waxa Liverpool ay baaqi ku sii ahaa doontaa abaarta ka haysata koob la'aanta horyaalka England Man City ayaa 4-1 ku durdurisay kooxda Brighton and half Albion waxaana gool looga hormaray ay ku bedeleen 4 gool oo markaa ka kala yimid Sergio Aguero Emre Laporte oo difaaca Riyad Mahrez iyo Ilkay Gundogan waxaana markaa City ay kugu dabaaldegtay guushaasi guriga kooxda Brighton and half Albion ciyaaryahanka lagu magacaabo Murray ayaa goolka ku bilaabay kulanka waxaana hal mar isla kacay taageerayaasha faraha badan ee ku sugnaa garoonka Anfield ee taageeriyay kooxda Liverpool waxa ay aamineen in Man City galabta loo qabanayo laakiin maxaa ku dhacay kaamirooyinka ayaa soo qabanaya gabagabadii ciyaarta iyagoo oo wada murugsan oo hoos fiirinaya taageerayaasha Liverpool oo markaasi ay u soo sawirantay in ay ku fashilmeen dadaalkii ay ku jireen ee ahaa inay hantaan koobka Liverpool qudeedu waa ay badisay laakiin badiskeedu wax micnaha sooma uusan kordhin waxaana 2-1 ay ku dharbaaxeen kooxda Wolverhampton Wanderers kolasha waxa ay Liverpool ka heshay ciyaaryahankooda weerarka ka dheela ee Sadio Mane kulmadii kale ee la ciyaaray Arsenal 3-1 ayay ku dubatay kooxda Burnley Crystal Palace 5-3 ayay ku dharbaaxday Bournemouth Newcastle ayaa dubatay oo 4-1 ku garaacday kooxda Fulham Leicester iyo Chelsea waxa ay ever ku wada galeen garoonka Leicester ee King Power Stadium halkaas oo ciyaar xiiso badan ay ku dhaxmartay labada kooxood Manchester United guuldarro qaraar badan ayay kala kulantay kooxda heerka labaad u laabatay ee Cardiff City 2 gool iyo waxba ayaa loogu dharbaaxay Man United guuldarro ayayna ku soo gabagabaystay horyaalkeeda Southampton iyo Huddersfield Town ayaa 1-1 wada galay Tottenham iyo Everton 2-2 ayay ciyaartooda ku soo idlaatay Watford iyo West Ham ayaa 4-1 ku dharbaaxday kooxda Watford horyaalka Ingiriisku sidaa ayuu ku soo gabagaboobay sida loo kala sareeyo markii aynu eegnana kooxda Man City ayaa ku hogaaminaysa horyaalka oo ku qaaday dhibco gaariya 98 Liverpool 97 dhibcood ayay la timid halka Chelsea 72 dhibcood ay markaasi iyana ay markaa hogaanka qaybta saddexaad uga jirto Tottenham ayaa afraad ku dhameysatay oo 71 dhibcood ayay leedahay waxaana Tottenham ay gali doontaa isreeb koobka Champions League laakiin saddexda kale ayaa si toos ah u aadi kara Arsenal iyo Manchester United waa khamiisley oo Europe League ayay ciyaari doonaan xilli ciyaareedka soo socda haddii aanu eegno dhanka iyo golalinta horyaalka Ingiriiska iyo kabta dahabka xidigii ku guuleystay xidigaha qaaradda Afrika ka dheela ee Mohamed Salah iyo Sadio Mane iyo Pierre-Emerick Aubameyang ayaa min 22 gool ku qaaday kabta dahabka ee Premier League xilli ciyaareedkan maadaama ay markaasi goolal isku mid ah keeneen abaalmarinta ayay qaybsan doonaan saddexdan ciyaaryahan ayaa abaalmarinta wadaagi doona maadaama ay xilli ciyaareedkan ku dhameysteen iyagoo isku goolal ah xidiga reer Masar ee Mohamed Salah ayaa 22 gool lahaa ka hor kulankii maanta inkastoo san shabaqa gaarin galabta haddana Sadio Mane iyo Pierre-Emerick Aubameyang ayaa labaduba min 2 jeer shabaqa gaaray sidaasna waxa ay markaasi kula soo sinmeen Mohamed Salah oo qarka u saarnaa inuu ku guuleysto kabta dahabka
hagaag dhegeystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaaraha horyaalka Ingiriiska oo aan diiradda ku saarnay kulamadii galabta la ciyaaray horyaalka Ingiriiska oo ay Man City ku guuleysatay Liverpool oo wali markaa baaqi ku sii ah koob la'aanta dhanka horyaalka England iyo wararkii kulamadii galabta la xiriiray halka ayaa ku soo gabagabeynayaa waxyaabaha soo kordha xogta ciyaaraha iyo daawadyaal kala soo kartaan